caruuska iyo caruusada goobtu waa Muuse Maxamuud iyo Barwaaqo Yuusuf waa lamaanay sacalmado ku aqalgalay deegaanka Gatiitaley malxiisada aroosku waa Ayaan Maxamed Colaad waa gabadha ay sheekadeenu ku socotee Ayaan Maxamed Colaad waa xaaska caruuska goobta waxaanay raalli ka tahay inuu ninkeedu gabadh kale la guursaday walibana daawada aan kuugu daree gabadha iyada la soo kaxaysay waanay u dhistay habeenkii arooskiisana malxiisad ayay u noqotay waa arrin aad u cajiib badan dhif iyo naadirna ay tahay gabadh noocan oo kale in la arko Muuse Maxamuud oo ah caruuska ayaan weydiiyay bal sidoo ayaan uga dhaadhiciyay arrintani iyo iyadu sida ay ula qaadatay waxaan ku qanciyay horta marka hore inaan arrinkan deegaanka galay marka labaad wadaadda sanda u sheegay hore marka xigta waan wada hadashiyay markaan wada hadashiyay waxa weeye arrinku uu dhamaaday waa ka daawalaytaan qaatida ku dhantay waaye baliyadu siday ugu qanacday markaad arrintaas u sheegtay baliyadu siday ugu qanacday isla arrinkii siday kula qaadatay waxay la qaadatay kalsooni aan iska qabnaba ay marka wax caqabado kale kula soo diristay ma jirtaa ma jirto dhankeeda waxaan iyadana wax ka weydiiyay dareenkeeda iyo arrintan ay sameysay bal sida ay ula muuqato Ayaan Maxamed Colaad caawa aroos xaajiga aroosa dhinaciisana waad fadhidaa waxa kale oo dhinaciisa fadhida gabadhii cusbeed oo aroos ay soo guursaday odagaagu bal adiga dareenkaaga caawa sidii wallahi dareenkaygu ma sha Allah si wanaagsan weeyaan waayahay waxay dadku is weydiinayaan in arrintan hore ma dhicin dumarka Soomaaliyeed halkii ragga markii la guursadeen ay istaagaan weyn garanaynaa bal adiga arrintan dumarka is weydiinaya gabadhu maxay arrinta ku kaliftay amba de maxay isbedelay oo dumarkii hore iska bedelay maxaad ugu jawaabi lahayd hooyo iskama kay bedelinayda waxaan leeyahay xajigu baan doonaynaa xasaro sameeyay anaan halkiiga ku jiro sababta kugu kaliftay inaad caawa arooskii mudanahaga aad ka qayb gasho waliba aad uga dhisto ee ugu weyn maxay tahay wallahi waa wanaagsantii isku qanacsanaan la isku qanacsan waayahay dumarka Soomaaliyeed ku daawanaya maxaad soo jeedin lahayd waxaan soo jeedin lahaydeenay waxaan ku oray raalida ka noqdan adigooda waxaan ku saas kala dayala in arrintaas oo kale ay sameeyaan aad iyo aad mahadsan tahay walaalo dhankooda waxa iyaguna arrintani aad u soo jiidatay dadka deegaanka arooskan la yaabka ku leeyahay waxa weeyaan waa aroos ay gabadhiisii hore uga soo malxistay gabadhan imakana ay hawshiisii dacal kala fadhido sida arkaysan wuxuu ka mid yahay dhacdooyinka dunida ka jira ayuu ka mid yahay intaan arkayay gobolkan daadweynaha gobolada Soomaaliland may ka dhicin qof ay gabadhiisii nin ay u malxistay hareeraha ka fadhiyaan waa arkaysan daawadayaal sidee labadaba hareeraha ka jiraan wan aroosyadii hore ee la aroosan jiray inantuna labadan hablood ee inanka hareeraha ka fadhiya ee labaduba ay marwooyinkiisii yihiina waa marwooyin cajaayib leh waa marwooyin baabiyey hinaasihii galaabtay dadka meel bay kaga soo warrameen hinaasii way tuureen hablahani waxay sameeyeen xadaarad aad iyo aad u ballaaran bay sameeyeen Ayaan Maxamed Colaad oo ahayd inanta marwadii hore ee xaaskii weynayda waxa ay sameysay guul ballaaran oo guusha waxay u soo hoysay waliba ragga dumarka guusha way ka hoysay ragga u hoysay limankii yara baqanaya dubis yara hayana waxa ay tustay inay la soo kaxayn karaanba dumarkii iska eegay gabadha kale iska eegay hadday meel ku wada noolaadaan inay guul tahay ayay samaysay waxa ay samaysay iyada uga soo malxistay oo inanka uga soo shaqaysay markii hore markii dambe uu kaxeeyana way raacdo way la gadoontay caawa oo malxiyeen arooskii yahayna iyada u malxiisada oo hareer fadhida marwadan waa marwo cajaayib leh oo ilaashanaysa daryeelka qoyskeeda iyo qoyska labaad ee soo kordhayba waxaanu leedahay dumarka ku dayda si sharaf loogu dayda waa khayrkiin waxaanu joognaa goobtii arooskii la yaabka lahaa ee gobolka Daadmareed ama meelahan waxa la sheegay jiray gabiile inuu ka dhacay ama boorama nin labadiisa dumar ahaa la malxiiseen laakiin tan waxay taasi dheer tahay la soo kaxaynta iyo la baadidoonka iyo hawlgalka loo ay u gashay marwadeeda kale ee uga malxiistay way la baadi doontay way la raadisay way la soo kaxaysay qisadan halkan ka dhacday arooskan ninkan labada hablood ee midna hore u qabay midna iminka ay la soo kaxaysay mid qisadan beledkan aad uga cajabisay bay noqotay waa dhacdo cajaayib leh gobolka Daadmareed aan leenahay dadka kale ha ku daydaan